السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سو دوادا ما ku dhib qabtaa xanuuna tirbeel ah oo ku soo wajahaya xilliga soonka Ramadaan ama soonka bisha Ramadaan ee barakeysan. Xanuunada aadka looga caawinayo waxaa kamid ah calool xanuun, shuban iyo majiir, dibriyo iyo daaquran, bug xanuun iyo lablabo, laabjeex ama laabqur, caajis fara badan iyo daal, jiif badan, korhur iyo oon badan. waxaa soo idil ka caawataa oo dhib kuma qabtaa. dhammaan waxaan ku haynaa talooyinkii looga hortagi lahaa. waxaan ku hayaa 3 qaacido oo aad u muhiimsan oo aad uga hortagi karto dhammaan waxyaabaha aan hadda soo sheegnay iyo waxyaabo la xiriiro Ramadaanka barakeysan ee maarta Ramadaanka xanuunada dadka soo wajaho hadii ay ahaan lahayd shuban iyo matag. 3daas talo ayaa maartay soo gelin doona insha Allah kanaalka YouTube-ka ee Kasmo Hospital. waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iideysan doontaan 3daas qaacido ama 3daas talo si aad u hesho muuqaalka. waxaan soo gelin doonaa linkiga comment ugu horeeyo. fadlan la soco oo raac linkigaas si aad muuqaalka u daawato. waxaan kaloo rajaynaynaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doonto muuqaalo fara badan oo ku jiro oo ka hadlayo caafimaadka iyo Ramadaanka iyo caafimaadka guud ahaanba. waad ku maasantahay la socoshadaada. mahadsanid.